السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتك وحنا برتان كلنا يوتيوب فيسبوك تيك توك بس ودوا هذا ميكا سوات شوكتان إن شاء الله ما أنتو حين كهل دونا موضوع كبحسن موضوع إني هراء تحنا هاي internal organs كواه gastritis وإن شاء الله يستمع دام ودتك الصوماليات أما بدي دتك بو آذ جفر بدني هاي أو قاست وحياة دتك كلها تعالى وكمدي هاي أما يلنو ليهين إن سيد الله لا تعالى إيه حالة دي سي ميرا وكل عيا حياة هاي نجورنا إن شاء الله markaas maanta gastritis ayaynu soo qaadanaynaa sidii hore bay isweydiin jirnay waxaan isweydiinaynaa gastriga asalkiisa waxa uu yahay inta loo qaybiyo meelaha uu ku dhaco sida loola tacaalo bilaa dawo iyo dawooyinka loo isticmaalo kuwooda ugu wanaagsan horta marka hore gastridu ugu horeyn waxa weeye waxaa la yiraahdaa waa xanuun ku dhaca caloosha gaar ahaan xuubka caloosha inta badan waliba loo yaqaano mucosaha ayuu inta ugu badan ku dhacaa waana badanka kaas oo mararka qaar ulcer ama nabar keena mararka qaar caabuq keena mararka qaarna qofka oo laab dilaac iyo waxyaabo noocaas dareemo isagoo uusan ku badan marka gastritis-ka ugu horeyn waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood oo loo yaqaano mid gastritis oo ku dhaca badanka waa barar caloosha ku yimaada iyadoo ay keenayso inta badan bacteria kaasoo acute noqon kara ama chronic waxaa kaloo jira gastric ulcer oo gastritic ulcer oo ah sida inuu calooshii uu nabar ku samaysmo waliba xuubka caloosha iyo ka saddexaad oo ah functional dyspepsia loo yaqaano taas waxa weeye waa calaamado uu qofku muujsanayo isagoo aan wax nabarana gaarsiin laakiin wuxuu dareemayaa calool-ololkii buu dareemayaa laab dilaacii buu dareemayaa aashitada caloosha badanaysa marka guud ahaan horta saddexdaasa loo qaybiyaa meelaha ay ku dhacdo caloosha ay kaga dhacdo gastridu inta badan maadaama caloosha ay ku dhacayso 3 meelood ayay kaga dhacdaa xuubka caloosha oo loo yaqaano mucosaha iyo afka hore ee caloosha oo aynu badanka inagu gastroesophageal reflux laga soo naqaano ama laab dilaac oo loo yaqaano antrum-ka iyo korka caloosha funduska 3 qaybood ayay ku dhacdaa inta badan marka laga yimaado 3 meelood ay ku dhacdo wax kale oo aan isweydiinaynaa waxyaabaha sababa waxa ugu badan bacteria loo yaqaano H pylori ama Helicobacter pylori taasoo ay badanka siyaabo badan u saameysa mararka qaar cuntooyinka inay ku raacdo oo kale cuntada caloosha ku dhalato iyo mararka qaarna in normal pylori ama bacteria caloosha ku noolayd ay dhaawac u geysato gidaarka caloosha marar uu qofku waxyaabo inta badan aanu muddo wax cunin waxa kale oo iyana sababa dawooyinka NSAIDska sida ibuprofenka dawooyinka xanuun baabiyaasha oo dhan iyaguna way saameyn bay ku leeyihiin oo iyaguna way ka qayb qaataan in qofka aashitada ama gastritis ay kacdo waxa kamid cuntooyinka shiilan ee saliidda leh ee saliiddu ku badan tahay cuntada shiilan oo dhan badanka waxay ka qayb qaadataa in aashitada caloosha aad loo soo daayo basbaaska kamida sigaar cabidda kamida bunka kamida stresska iyo walbahaarka kamida oo sida caadiga naqaano dhaqanka Soomaalida kamida waxa jirta qofku marka uu warwariyo kale wuxuu yiraahdaa caloosha ay huraysa ama calooshu ka gubanayay marka stresska badan iyo walwalka badan waxay ka qayb qaataan gastritis-ka sidoo kale waxa kamida khamriga oo isaguna saameyn ku yeesha maadaama alcohol yahay inuu markuu qofku cabo acid waxaan jeedaa mucuska caloosha oo dhan uu saameyn ku yeesho ta kale ee ugu badan naga Soomaalida oo marka bacteria laga yimaado iyo cuntooyinka shiilan iyo waxyaabahaas aad inoo sababto waxa kamid ah caloosha oo muddo dheer marnaata tusaale ahaan qofku xalay buu casheynay saako kale wuxuu ku raacanaya muddo dambe deetana waxa dhacaysa in maadaama oo acid caloosha mar walba la soo deynayo haddii cunta oo calooshaada ku jirtay haddii kaleba maadaama aashitada caloosha ay la soo deynayo waxa jiraysa in ay saameyn ku yeelato oo maxay ahayd ay sababto ay dhaawac u geysato mucosa ama gidaarka ama xuubka caloosha hoose waxa kale oo isweydiin waxa weeye sidee loola tacaala iyadoo aan wax dawaa la isticmaalin gastridu maadaama wax qofka haddii ku dhalata ay adag tahay inay ka tagto waxa jira in la noolaado lana tacaalo siyaabo loola tacaalayo hadaba waa maxay waxaad loola tacaalaysaa inaad cuntooyin jilicsan oo kala cunto xilliyada ay aad kugu kacsan tahay oo tusaale ahaan aad cuntid sida muuska oo kale caano oo kale waxyaabahaas oo kale aad isticmaashid
waxa kale oo cuntooyinkii shiila iyo waxyaabahaas inaad ka fogaatid sida basbaaskii, khamrigii, cuntadii shiilayd oo kale, sigaarkii, walbahaarkii, inaad waxyaabahaas oo kale ka fogaato, inaad cudaanta waliba cuntada khudradda cuntooyinka khudradda oo kale aad u badsatid, inaad cabtid biyo diiran ama caano diiran oo kale, warwarka iyo waxyaabahaas inaad maxay ahayd hooleeyeen aad iska yaraysid. Habeenkii oo kale inaad seexan adigoo aan waxba cunin si maadaama muddo dheer aad u hurdayso oo aan calooshaada u maranin. Kuwaas waa kuwa ugu muhiimsan lagula tacaali karo. Talooyinkaas waxay naga caawinayaan inaynu tusaale ahaan la tacaallo inagoo aan waxba dawooyin aan cunin. Haddaba dawooyinka kuweeba ugu fiican tusaale ahaan markay laab dilaac oo kale aad dareemayso inta badan anti-acidka oo kale fiican iyo sidoo kale maalogoska oo kale iyagu degdeg ayay u yareeyaan calool huritaanka. Haddii ay tusaale ahaan gastritis oo kale caadi iyo calooshii ay ka jirto oo laab dilaac oo kale ahayn, dawooyinkan PPI-ga loo yaqaano proton pump inhibitorska ay ka mid tahay omeprazole iyo lansoprazole iyo kuwaas oo hoos u dhiga gaasta caloosha ay yareynayaan oo diminayaan. Sidoo kale waxaa jira H2 blockers. H2 blockersku iyagu badanka dawooyin waxaa ka mid ah ranitidine oo imika inkastoo oo la iska daayo oo dhibaatooyin kala keento iyo famotidine iyo iyaguna PPI-ga haddii la waayo waa la isticmaali karaa. Haddaba haddii ay wax ay keentay Helicobacter ama H pylori ay keentay, waxaa jiri kara in dawooyin triple therapy antibiotic iyo la isku raaciyo iyo PPI deedna sidaa lagu daweeyo. Marka guud ahaan horta gastridu waa wax ku badan dadka Soomaalida iyo dadka adduunka oo dhan ba wax iska jira oo xanuunada ugu badan ee dadka ku dhaca weeye. Waxyaabaha inta badan sababaan waxa weeye waxyaabahan uu qofku isticmaalayo. Haddii qofku uu ka fogaado warwarka, sigaarka, khamriga, cuntooyinka shiilan iska yareeyo, cunto la'aanta badan uu iska yareeyo, waxaa laga yaabaa inuusan gastri weligii aysan ku dhicin oo maadaama uu la tacaalayo. Haddii ay kugu dhacdo gudheed waxa weeye inaad la tacaasho oo waxyaabaha kugu kicinaya aad iska yareyso. Waxyaabaha acid ku badan tahay oo dhan inaad iska yareyso, cunto la'aanta inaad iska ilaaliso, warwarka inaad iska ilaaliso, cuntooyinka cagaaran inaad aad u badsato oo waxyaabahan shiilan iyo waxyaabaha saliidda ku badan tahay aadan isticmaalin. Markaa dhammaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa insha Allah mawduuca yara gaaban ee ku saabsan gastritis-ka maadaama aan u aragnay inuu muhiim u yahay dadka oo maxay ahayd waxyaabo badan ay aad dadkeena ay ugu badan tahay. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan casharkan ka xigeentaan iskugu iman doono waxaad ilaahay meel kasta aad joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.